ka dhici doonta Soomaaliya oo madaxweyne cusub lagu dooran doono 4 sano soo socoto madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadallo kulul isweydaarsadeen madaxweynaha hadalladiisa waxa kamid ahaa in xil haatan xilalka isku soo taagayaan niman arrimihii badda wax ka ogaa oo ula jeedo ra'iisul wasaaraha iyo xubno kale ra'iisul wasaarahan shijir aad u qabto wuxuu yiri dalalka dariska madaxweynaha taageeraya hadallada cadcad oo saal isku adeegsanayo iyo doorashada Soomaaliya arbacada dhici doonta dadkuna dad fara badan oo cabsi ka qabana waa jiraan oo aad u aaminsan in faragelin cad oo loo jeedo inay ka dhex jirto magaalada Muqdisho iyo musuqmaasuq baasan haddii arinta cabsida dadka ay ka muujinaan ay dhacdo Soomaaliya mustaqbalkeeda halkuu ku dambeyn doona fuad Soomaaliya waxay oranaysaa labadii sir ku heshiiso aad bay ku aragtaa horta waxa weeyaan qaadi iyo qariyo bay isla ahaayeen hadda labadii noo sheegayso oo waxa isla sameynayaan mid kasta wixii uu sameeyay kan kalena uu ka tirsan yahay oo kamid buu yahay laakiin mid baan aniga aan mar kasta sheegay oo hadda Soomaali ay soo toostay leedahay Allah ilaahay in laga hadlo arrinta way jirtaa Soomaaliya wala la wareeg yaa la wareeg wadama jiraan hay Ethiopia wala wareegtay Kenya qaybteeda ku haysata ajnabi kale oo dibadda ka imaadey wala wareegan Soomaaliya wax la hadda ma jirto dawladna ma jirto waxa weeyaan waliba hatta yani sharaf darrada heerka la gaarsiiyay in hatta qofka farta ugu yeeri iyaga oo u qori wax kasto waxan mar uu dhihi inuusan prime minister iyo hatta wasiir xagga joogo sanay kurayar oo shalay laba alif la ahaa oo weligii iskuulna aan gelin oo ana alphabet illiterate semi illiterate oo tributaryada Ethiopia oo mooyaala ka shaqeyn jiray oo Gabriel ay ya farta ugu yeerahay iyaga oo dhanba waxa Allah wuxuu doono dhanba intay maray ilahay Soomaaliya gaar baa ku dhacday Xasan Sheekh laakiin wuxuu leeyahay dadka ila tartamayaaba qayb ku lahaa dalka inay wax ka dhiibaan oo jaanisna hal yisiir ana wax dhameystiraaye marka maxaa waa runtii oo dadka la tartamaya dad ma kulli ma aha laakiin dad la tartamaya waxa jira aad oran karto wax bay ka ogaayeen waxyaabaha dhacay oo dhibaatooyin badan oo dhacay hadda ka hor oo aniga aanan hadda tafaasiisheeda bixinayn laakiin asaga wuxuu sameeyay weeyaan muddadii meesha ku jiray oo ka darnaa ana ku sheegay Soomaaliya maxamed ma ana waa saaxiibkay waan isbiqiina aqoon mar isku qadar halkii MP ga markii weerta $100 masuuliya in maartay ku sameeyay doorashadan hadda inta laga keenay manin ay bangi kulaha Kenya iyo Tanzania iyo Uganda iyo meelaha sokoro taajir ah oo Mareykanka bixistaan kulaha baa jiray markii hore ragan madaxda dawladda ku jira waxa Sheekh Maxamed kamid yahay soo hantidii wadankii intuu madaxweyne ka ahaa iyo intuu ka dhax shaqeynay gacantiisa soo gashay